Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasha qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha. Maanta waxaynu soo qaadan doonaa Premier League oo caawa la daahfuraya oo ah 21 Agoosto 2026, waxaana lagu daahfurayaa kooxaha Arsenal iyo Coventry oo ku kala guuleystay. Arsenal oo sanadka hore Premier League ku guuleystay, sidoo kale Coventry oo soo qaaday heerka labaad ee England ama Championship-ka, waxaana lagu ciyaari doonaa Emirates Stadium. Marka waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena intuu socdo waxyaabaha laga filan karo Arsenal iyo sidoo kale Coventry. Arsenal ma difaacan doontaa horyaalka, sidoo kale saddexdooda dhibcood ugu horeysa ma qaadan doonaan, sidoo kale Coventry ma isdifaacan doontaa kulankoodii ugu horeeyay ee Premier League. Frank Lampard iyo Mikel Arteta tacticadooda ayaynu soo qaadan doonaa iyo wax walba oo ku aadan kulankan oo wargeysyada ugu waaweyn ee ciwaanada ama Yurub ay qorayaan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Haddaad hore noola joogtay, like iyo share noo dheh, waad mahadsantahay. Arsenal ayaa Jimcaha 21 Agoosto 2026 bilaabaysa difaacashada horyaalka Premier League iyadoo garoonka Emirates Stadium kusoo dhaweynayaan kooxda ku cusub ee Premier League, Coventry. Kulanka ayaa bilaabanaya 10 fiidnimo xilliga Geeska Afrika. Arsenal ayaa xilli ciyaareedkan mar kale loo arkaa kooxda ugu cadcad inay ku guuleysato Premier League. Gunners ayaa xilli ciyaareedkii hore qaaday horyaalka iyagoo ku dhameystay kaalinta koowaad 85 dhibcood, taasoo ay kaga horeeyeen Manchester City oo ku dhameystay kaalinta labaad 7 dhibcood. Dhanka kale, Coventry waxay Premier League kusoo laabatay markii ugu horeysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2000 iyo 2001. Coventry ayaa xilli ciyaareedkii hore si cajiib ah ugu guuleystay Championship-ka ee heerka labaad ee England iyadoo heshay 95 dhibcood. Sidaas darteed, labada kooxood waxay kulankan ku imaanayaan xaalado aad u kala duwan. Arsenal waxay rabtaa inay si xooggan ku bilaabato difaaca horyaalka, halka Coventry ay dooneyso inay muujiso inay diyaar u tahay tartanka heerka ugu sarreeya ee England. Arsenal waxay kulankan kusoo galaysaa kalsooni weyn kadib guushii ay ka gaartay Manchester City ee Community Shield-ka. Gunners ayaa City ku garaacday 3-0 iyagoo soo bandhigay kubad aad u wanaagsan. Guushaas waxay fariin u dirtay kooxaha kale ee Premier League, gaar ahaan Manchester City, Liverpool, Chelsea iyo kooxaha kale ee doonaya horyaalka. Laakiin tababare Mikel Arteta wuxuu ogyahay in Community Shield-ku uu ka duwan yahay Premier League. Hadda wuxuu bilaabayaa tartanka dhabta ah. Arsenal haddii ay rabto inay mar kale qaaddo horyaalka, waa inay kulamada noocan ah si joogto ah u badiso. Kulanka Coventry waxay u muuqdaa mid Arsenal ay tahay inay ku guuleysato, gaar ahaan maadaama lagu ciyaarayo Emirates Stadium. Arsenal xagaagan waxay sameysay saxiixyo muhiim ah. Kooxdu waxay la soo wareegtay Bruno Guimaraes, Hinkawia, Tosellis, Illan Mesres iyo sidoo kale Ezri Konsa. Laakiin kulanka Coventry, Arsenal waxay dhibaato ku qabtaa dhaawacyo. William Saliba iyo Jurrien Timber ayaa kulankan seegaya dhaawacyo dartood. Mid ka mid ah su'aalaha ugu waaweyn ee Arteta horyaala waa xaaladda Bukayo Saka iyo Declan Rice. Labada ciyaaryahan waxay ka soo muuqdeen kursiga keedka kulankii Manchester City iyo Community Shield-ka. Saka ayaa loo maleynayaa inuu kusoo laaban doono safka ugu horeeya ee Arsenal kulankan. Declan Rice-na waxaa laga yaabaa in aan si buuxda loo bilaabin, waxaana suuragal ah inuu mar kale qaybta labaad ciyaaro si tartiib ah loogu soo celiyo ahaanshihiisa. Haddii Saka uu kusoo laabto safka hore, isbeddelka ugu weyn wuxuu noqon karaa inuu booska ka qaato Nuno Madueke. Kai Havertzna waxaa la filayaa inuu noqdo weeraryahanka dhexe. Coventry waxay xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay Championship-ka iyadoo heshay 95 dhibcood. Waxay 11 dhibcood ka horeysay Ipswich Town oo gashay kaalinta labaad. Taasi waxay muujinaysaa sida wanaagsan ee ay xilli ciyaareedkii hore u ciyaareen. Coventry sidoo kale waxay xagaagan suuqa kala iibsiga aad ayay ugu shaqeeyeen. Waxay la soo saxiixeen 8 ciyaaryahan iyadoo mid ka mid ah saxiixyada ugu weyn uu yahay Caleb Yankiri. Waxay sidoo kale fasaxday 4 ciyaaryahan oo kooxda koowaad ah. Frank Lampard oo ah tababaraha Coventry wuxuu rajeynayaa in saxiixyadan cusub ay kooxda ka caawin doonaan inay ku sii nagaato Premier League. Laakiin hawsha ugu horeysa waa mid aad u adag in Emirates Stadium ay kula ciyaaraan kooxda horyaalka difaacanaysa. Arsenal iyo Coventry ayaa taariikhda kulmay 76 jeer. Arsenal ayaa leh rikoor wanaagsan. Gunners waxay badiyeen 43 kulan, halka Coventry ay badisay 14 kulan. 19 kulan ayaa ku dhammaaday barbaro. Taasi waxay Arsenal siinaysaa taariikh ahaan faa'iido weyn. Laakiin kubadda cagta mar walba lama saadaalin karo iyadoo lagu saleynayo taariikhda oo keliya. Coventry waxay hadda tahay koox ku cusub Premier League, waxaana la filan karaa inay si adag u difaacato. Waxaa ugu muhiimsan Arsenal inay hesho gool hore qaybta hore. Haddii Arsenal ay gool dhaliso qaybta hore, ciyaartu waxay u badan tahay inay u fududaan doonto. Laakiin Coventry haddii si fiican u difaacdo oo ay Arsenal ka hor istaagto inay gool dhaliso, cadaadiska ayaa ku sii badan kara kooxda uu hogaamiyo Mikel Arteta. Coventry waxay u badan tahay inay isticmaasho difaac nidaamsan kadibna isku daydo weeraro degdeg ah. Arsenal waxay u baahan doontaa dulqaad, dhaqdhaqaaq badan iyo kubbado si degdeg ah loo wareejiyo. Martin Odegaard ayaa noqon kara ciyaaryahan muhiim ah sababtoo ah wuxuu door weyn ka ciyaari karaa furitaanka difaaca Coventry.
Bukayo Saka haddii uu ciyaaro wuxuu sidoo kale noqon karaa khatarta ugu weyn ee Coventry ay wajahdo. Marka loo eego tayada labada kooxood ee garoonka lagu ciyaaray iyo qaabka Arsenal ay ugu soo muuqatay Community Shield-ka, Arsenal ayaa ah kooxda loogu kalsooni badan yahay inay 3 dhibcood qaadato. Coventry waxay isku dayi kartaa inay Arsenal ku adkayso kulanka, haddii ay Arsenal ay ciyaarto heerkii ay Manchester City kaga badisay 3-0, Gunners-ku waxay heli karaan bilow wanaagsan oo Premier League ah. Arsenal waxay dooneysaa inay difaacashada horyaalka ku bilowdo guul, halka Coventry ay dooneyso inay sameyso bilow lama filaan ah si ay u sii nagaato horyaalka Premier League. Kulanka Emirates Stadium wuxuu noqon doonaa mid xiiso badan, gaar ahaan iyadoo Arsenal ay markii ugu horeysay xilli ciyaareedka Premier League ka hor imaaneyso taageerayaasheeda iyadoo ah kooxda horyaalka difaacaneysa tan iyo sanadkii 2004.